بسم الله الرحمن الرحيم وانيga oo Cabdirashiid Cali Socaac uma aan sii sheegin horay soo dhawaada hore uma sii iclaaminin waxaan u soo galay live-kan yaraha degdega ah caraatanka soo noqnoqday ee dumarka uu Cabdiilay kula kaco waana tii ugu dambeysayna waxay ahayd labadii gabdhood uu soo caayay shalay ilaa daraad waxaa ka horeysay hooyaday iyo waalid kale waa arrin soo noqnoqotay waxaadna moodaa dad badan inay caadi la noqotay oo qoraallo badan dadku waxay leeyihiin maxaa hadda loo xanaaqayaa gabdho badan baa la caayay ama mar walba waa la caytamaa maxaa isbedelay gabdhaha waa la caayaa waa iska caadi calashaan caadi bay la noqotay maxaa ka macnaa arrintaas normalizing the abnormal waxa aan normalka ahayn oo normal laga dhigo ayaan u soo galay darteed inaan dadka aan u yar bayaamiyo waxa weeye wax haddii la sameeyo ama lagu celceliyo maamul uu sameeyo kama dhigno waxaas inuu caadi yahay waxaan idin weydiinayaa ummad kale ama maamul Soomaaliyeed ama maamulka Puntland ha ahaado ama Somaliland ama Koonfur ama kan Etoobiyaba dawladda weligiin miyaad aragteen maamul TV gabdha ka soo caynaya dumar ka soo caynaya oo intuu niman soo kiraysto waalwaalan weliba dadkiisiya ehelkiisiya soo caynaya miyaad aragteen weligiin ma aragteen hore ma u aragteen ma wax caadiyaba idinla muuqataa maalin walba gabdhaha oo muxramaadka weliba marwooyin ah oo la qabo iyo hooyooyin waalid ah in la soo caayo inuu iska dhahano waa caadadii lama qaadan karo in caadi laga dhigo waxaan caadi ahayna waa maaragtay waa wax lala yaabo waa wax aad loola yaabo dad kale gabdhaha la soo caayi jira maxaa ka macnaa haddii la soo caayi jiray kuwii horena khalad bay ahayn kuwana khalad bay yihiin markii horena inaad ka dhidhiid bay ahayd walaasha haddii la soo caayay haddana in laga dhidhiye bay ahayd dhaqanka Soomaalida ee sharafta badan waxaa caadi ahaan jirtay gabadh baa la isku diri jiray laba reer yaa gabadh la caayay ama la afxumeeyay baa dagaal intuu ka dhacay laga yaabaa niman fara badan ama 50 ama 60 ay ku kala dhiman jirtay maanta nin maamul sheeganaya oo madaxweyne sheeganaya ayaa TV ka soo caynaya dil waa la gartay xarig waa la gartay wax walba kale laakiin TV intuu soo istaago meel inuu gabadh la qabo oon ayadu wali waxba ku sameyn waxaan rabaa inaan idiin sheego gabdhihii hore wuxuu dhihi jiray barigii hore waxba iga sheegtay hadda gabdhaha uu caynayo ayagu waxba kama sheegin wuxuu wax u haystaa walaaladood ama aabayaashood ayaa wax iga soo sheegay ayaka ma ani hooyaday wuxuu u caynayay anaa wax ka sheegay hooyaday uu kamayna hadal meel ma soo hadal qaadan asaga aniga dartay buu u caynayay gabdhahan hadda walaaladood buu caynaya ma waxaasa madaxweyne iyo maamul lagu tilmaami karaa waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo nimankii ogaadeen Nairobi kula kulmay ee isla soo sawirayay salsalaamayay ee madaxda Kenya iyo Soomaaliya balaha ma waxaasa taageersantiin ma ogaadeenkii aad sheeganayseen inaad siyaasiyiin u tihiin iyo absamihii aad lahaydeen madax baan u nahay gabdhahooda inuu soo caayo idinkuna aad hoteelada Nairobi ku salaantaan oo sidii hero aad u soo dhaweysaan ma saasa idin la quman ma saxba idin la muuqataa haddii aan idin la muuqan maad ka hadashaan why don't you speak up maad hadashaan oo tiraahdaa war waxaan anaga nooma qalmo aawe suldaamadii aawe ugaasyadii aawe garaadadii aawe dadkii dhaqanka ilaalin jira dhihi jira dhaqan baan ilaalinaa iyo reerkaanu matalaa war soo dhaqan xumo dhaqanka Soomaaliyeed kuma ahayn gabdhaha in la caayo oo waliba dawlad soo caydo shakhsi ma maamul dawladeed iyo idaacad dawladeed iyo TV dawladeed in laga soo caayo bal waxa ugu yar oo idinka filan karna waxay ahayd haddaad la hadasheen banninka oo salaanteen inuu caraatanka joojiyo waliba ku caraatanka gabdhihiina inuu joojiyo eedooyinkiina inuu joojiyo dad aad taqaanaan ood ehel tihiin iyo qaraabo aad tihiin oo lagu aflagaa doonaya aawe dhaqankii Soomaalida kale aan ugu faani jirnay oo niman dhaqan la baan ahaynoo dadka ogaadeen ama Soomaali galbeed ka yimaado waa dadka ugu dhaqan adag Soomaali baa la oran jiray aawe dhaqankii adkaa aawe xaw ka bax aawe akhlaaqdi aawe anshaxi
reer kale oo Soomaaliyeed miyaad aragteen oo Facebook iyo YouTube iyo TV laga soo deynay gabdhahooda ay ka caynaya reer Soomaaliyeed miyaad aragteen oo nimankooda intii soo istaagaan arigan fuul jirna ay leeyihiin miyaad aragteen lagaga yeersiinayo miyaysan idiin muuqanin dhaqan bedel ama normalizing the unnormal ninkan waxaan normal ahayn oon dhaqan ahayn oon akhlaaq ahayn oon diin ahayn inuu rabo inuu normal inooga dhigo miyay idinka daman tahay soo ma aragtaan goormaad hadlaysaan goormaad dhaqaaqaysaan mataa alaysa minkum rajulun rashiid war miyuusa idinku jirin qof caaqila oo ugaas keliya oo caaqila oo ka hadla arrintaa suldaan keliya miyuusa ku jirin siyaasi keliya miyuusa ku jirin beesha yidhaah arrintaas waa khalad aawi siyaasiyiintii aawi culimmadii aawi cuqaashi xaggee lagu arkay dad dhan oo iska mataqaanaa qaayibay dullinimada iyo ducfinimada oo qaayibay hal nin kama hadli karo waxaas waa waxun ma odhan karo ayeydii baa la dilayaa aayaday baa la xidhayaa habaryartay baa la soo qabanayaa war maxaad dhowranaysaa habaryartaa horey baa loo dilay ayeydaa waa la dilay aabbahaa waa la dilay walaalkaa waa la dilay maxaad dhowranaysaa hadda maxaa ku haray oo hadda aad si leedahay badbaadi sharaftaadii iyo karaamadaadii iyo cizadaadii baa la dilay miyaysan waa wax aad loola yaabo oo waxaad loola yaabo markii koowaad ma aha markii labaad ma aha waxaa aad ii tacajubisay laba gabdhood oo marwooyin ah oo xaasas ah oo la qaba in uun layska soocaayo oo niman intii loo kiraysto waalwaalan oo TV-ga laga soo daayo maatoon lagu caraatamo walaal bay leedahay seedi bay dumaashi bay leedahay aab bay leedahay ilmaadeer bay leedahay ina abti bay leedahay aawi ehelkoodii aawi dadkii war waxaa normal ma ah war khubtiga iyo xumaanta ayaa la rabaa normal in laydinka dhigo warna ha yeelina waa la sameeyey waa okay hadheena maalinkuu sameeyaba ka xanaaqa ka dhiidhiya ka hadla war waxaasu dhaqan ma aha dhaha war dhaqan islaam iyo mid Soomaaliyeed iyo mid insaantoona ma ah iyo mid bini aadantoona ma ah u sheega war waxaasu ma qaadan karna ku dhaha cabdo kuwiina taageersan baan la hadlayaa kuwiina u saxabatumo baan la hadlayaa kuwiina salaamay ee soo dhaweeyay baan la hadlayaa ma waxaas hadda kadib aanu ninkii cabdi taageero waxaan u qaadanayaa nin caytanka ama ku caraatanka gabdhaha taageeray oo ugu saxabatuma xaqiiqatan waana saas maxaa yeelay ninka eedadii ama walaashii ama ayadii oo la caynaya ninkii caynayay taageero u saxabatumee dhaha waa haliyey iyo waa hogaamiye macnaha waxa way caytanka iyo caraatankaas hogaamin u haystaa wuu ku faraxsan yahay in walaashii la soo caayo wuu ku faraxsan yahay in eedadii la soo caayo wuu ku faraxsan yahay in adeertii la soo caayo raalli buu ka yahay bay ka dhigan tahay macnaha maxaa yeelay kama uu hadli karo daraad baa waxaan lahaa cadaaladdu waxay tahay haddii aadan waxa xumaantiisa iyo xumaan kuula muuqda aadan sheegi karin wanaaggiisa ha sheegin ama waxa uu asagu raba ha u odhanin waad u odhanaysaan idinkoo dhan kama hadlaysaan maanta markuu dadka caynayo ee gabdhihiina uu ku caraatamayo beritoole hadduu brobaganda yar soo samaystuu yidhaha maxaabiis baan soo daayey waad la wada ordaysaan waad la cararaysaan waxaad leedihiin haa wuu soo daayey oo been ah brobagandadiisii baad fidinaysaan ha la soo dhoweeyo ha loo mahadnaqo qoraallo dhaadheer baad qoraysaan xaqiiqatan anu ma garanay waxaa idinku tilmaamo dad maskaxda ka xanuunsan inaad tihiin dadkan wax si ka ah bal amwaatun fahum laa yafqahuun aayadda qur-aanka aad baa kuwan waaba kuwa dhintay baan u malaynayaa oo waxba fahmayn ashaan damiirkiinii insaannimada baa la dilay hore oguma farxin noloshaydii haddana kuma farxay waxa dhaqan xumada ah qofku damiir inuu leeyahay baa fiican dilka waaba la gartay akhlaaq xumada la baahinayo dhalan rogga la baahinayo salaadiin iyo garaadaa intii la soo istaajiyaa leeyahay walaaladiin waxaad dhahdaan dabadaa laydinka fuulaa waraxaas ma dhaqan baa waan oga mahad celinayaa ugaaska qabri dahre maalinkii waxaas la yidhi dheh inuu si cad u hor istaagay wuu ku yidhi ma odhanayo waadna khaldan tahay waxaa loo baahanyaa dad saasoo kale u hor istaaga oo yidhaha waad khaldan tahay cabdow ma odhanayno gabdhaha annaga naguma warcaayi kartid jooji kuguma taageerayno kuguma sacabtumayno dad yidhaaha loo baahanyaa war haddii aad damiir leedihiin iyo dadnimo leedihiin bal calal aqal inaad dhahdaan calal aqal waxa ugu yar war dadka kaleba gabdhahooda lama soo caayo gabdhaha cayda nooga daa gabdhaha cayn fahum laa yasmacuun
waad ku mahadsantahay aayadda aad ii saxdaysaad waxaa loo baahan yahay dadku inay meel uun bal waxuun xad inuu jiro xad aan la dhaafi karin adduunka kale wax taabu la yidhaaha buu leeyahay taabu arrimo aan laga hadli karin dhaqanka soomaalida gabdhaha lagama hadli jirin warba ninka gabadhan xataa iyadu la hadal iska badaa tu la hadashay tu aan la hadlin gabar yaroo foodle hadday maanta waxa ugu soo qorta meel subaxa ku xigta qaraatan buu la soo fariisanayaa gabadhi iyo reerkoodii TV buu ka soo deynayaa idaacadan buu ka soo deynayaa rag buu u shaqaaleeyay guryaha ugu dhisay mushaar ku qaata wuu soo qorayaa midda kale asagu waxba ma caynina niman baa soo caayay jigjiga like haddaad saartid adoo dibadda joogto iska daa wax kale wuxuuna cabdi raali ka ahayn reerkaagaa u maqan waynu sognahay waad ogtihiin jigjiga gudaheeda cajalad ama wuxuuna cabdi ogeyn inaan laga soo qori karin laga soo duubi karin waad ogtihiin waxaa soo qora cayda oo dhan cabdi baa soo qora ilaa iyo wuxuu soo qorahayay 2010 intuu yimid yuu cayda soo qorayay cakaara cayihii uu ku soo qori jiray dadkii hore haddaad fiirisid iyo cayda uu hadda dadka ku cayo waa isku mid waa isku nooc ragga qori jiray haba kala duwanaadaan oo qaarkood ha xidho laakiin caydu waa isku nooc waa isku tab waa isku qaab waxa caynayay caydaa soo samaynaya qoraya waa cabdiilay waxaa hadda u fuliya oo hawsha u qaabilsan farxaan maxamed wiil la yidhaha farxaan dubayo oo ree iraad ah oo ilmaadeer yihiin waa yarka ESTV haysta farxaan ESTV baa la yidhaha asagaa fuliya asagaa isku dubarida meesha lagu duubahayo waa TV-ga iyo FM-ka jigjiga derbiga iyo dhismaha iyo xarunta meesha lagu duubahayo waa idaacaddii iyo TV-ga xaruntoodii marka there's no excuse inuu asaga yahay waad ogtihiin ha ismoodsiinina ka hadla oo gabdhihiina la caynahayo bal waxa kaloo dhan qaadate in laydin dila qaadate in wiilashiina la xirxira qaadate in suldaamadiina la yidhaha caraatama oo xuquuqdii aamuska xataa loo diida waad ogolaateen inkastay dullinnimo ayakana ku tahay suldaamada iyo garaadada la qasbayo dullinnimo iyo dacfi bay ku tahay mana qabo in suldaan loo aqoonsado ha lagu dilo laakiin in lagu yidhaha walaalkaa cay oo wiilkaad adeerka u tahay cay oo waa la fuulaadhe waa daciifnimo iyo dullinnimo kow in lagaa siiyaa la qaatay waa wixii wiilkii ciise uu iska dilay markuu maqlay yaa uu iska dilay wey war damiir yeesha dullinnimo yeesha war salaadinku sheegtan iyo siyaasiyiinku sheegtan beesha horbooda markii dhaqaaliyo wax la sheego cabdi u sacabatuma bilaa calaykum u sheega oo diida waxaan xumaanta haddii aad leedihiin waaba saxna gabdhaha in la caayana haddee ummadda u sheega xaqiiqatan haddaydan ka hadlin dadku waxay u qaadanayaan inaad ku raacsantihiin magacyo ma jecli inaan sheego laakiin siyaasiyiintii Nairobi kula kulantay oo dhan marka aysan ka hadal caraatankan TV-ga idaacadaha laga soo deynaya gabdhaha waa niman ku raacsan baan u qaadanaynaa hadda kadib waxaa leeyahay waa ninkii cayda taageeri jiray gabdhaha sidaa idinkuna dhaha nin kastoo siyaasi ah oon ka hadlin waxaad dhahdaan waa raggii taageeraya cayda gabdhaha raalliga ku ahaa ilaa ninkii ayaka isla sawiray oo hero ka dhigay oo haliyey ka dhigay oo soo dhoweeyey marka waa inay ka hadlaan xumaantiisa waa inay sheegaan arrinta kale oon jecelahay inaan aad uga dhiiriyo waxay tahay haddaad ficilkiisoo kala samaysid gabadh buu caayay haddaad gabadh caydid lamid baa tahay waxba isma bedelin gabdho wuu caayi karaa asagu waa dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa laakiin aan lagu dayanin oo ha la kala duwanaado dhaqanka iyo akhlaaqda dhalinyarada iyo dadku ha ilaaliyaan anu ma arag weli qof kale oo gabadh caynaya cabdiiley aan ka ahayn marka cabdiiley uuna ha ku koobnaada dhaqanka uusa inagu faafinin aynu halkaa ku oodno waa dhaqankii cabdiiley gabdhacaygu waa dhaqan uu Soomaali ugub ah oo uu Soomaali ku soo kordhiyay Soomaali oo dhan uu ku soo kordhiyay horey wax gabadh u caayay ma maqal dictator kasto caalamka ka jira madaxweynaha Syria Bashar al-Assad malaayiinta laay oo gabdha TV ka caayay ma maqal waxyaala waxaa jira dadku ay ka fogaadaan hatta I don't think inuu Hitler hatta inuu waliga caayay gabar maran maayo intuu TV soo fariisa ama la caayay inuu laayay malaayiin way dhici kartaa marka waa dhaqan laga yaxyaxo waa dhaqan ciyaal suuqnimo waa dhaqan dullinnimo iyo dacfiga heerka uu joogo bay ku tusaysaa kaliya ma dadka inuu dilay uu xiray wuxuu dadkii ku sameeyay dhaqankiibu ka bedelay totally xayawaanka oo kale ka soo qaaday
maxay xayawaanku kama damqadaan walaashii iyo hooyadii iyo wax walba lagu sameeyo adu inaad ka danqan marka sidii xayawaanka kor kugu wada wax badan isma bedelaysaan isku mid baatiin aad baan uga xumahay arinta ayada aad baan u dhaleecaynaya inta wax garadkoo dhan iyo culimada waxaan jeclahay inay ka hadasho cirdiga lagu xadgudbayo iyo gabdhaha sharafta leh lagu xadgudbayo Soomaaliyeed iyo akhlaaq xumada la baahinayo ee la faafinayo in si toos ah looga hadlo inay culimadu ka hadlaan inay wax garadku ka hadlaan inaan la dhayeelsanin inaan caadi laga dhigin waa caadadii wuu caay jiray gabdhaha weligiiba hadduu caay jira macnaha ma ahayn normal ahayd haddana normal ma ahayn markaana normal ma ahayn mar walbaba khalad bay ahayd in gabdhaha la caayo in lagu aflagaadoodo marka aad baan idin salaamaya dhammaantiinba aad iyo aad baan idin salaamaya arrinta ayadaa sida ha laga dhiidhiyo wax la dhowrto ma jiro daalimkan yarka ha la iska qabto waa daalim ilaahay ka furtoon dhaqan iyo akhlaaq iyo diin midna lahayn ha laga maaragtay ha la iska qabto ha loo midoobo waxaa doonay aaminsanow laakiin dhaqan xumada dhalan roggaas akhlaaq xumada socota laynta xarigga dilka kufsiga oo caadi ka noqday ma jecel inta badan inaan ka hadlo deegaanka markaa dadku ay ku waramaan ama ay ku shakeen ku soo wacaan normal buu ka noqday la iskulama yaaba hadda dhulka gabar baa la kufsaday ceeb kama ah waa normal buu ka dhigay hadda wuxuu rabaa normal inuu ka dhigo gabar baa TV laga caay iyo hooyaa laga caay TV normal inuu ka dhigo rabaa wax caadi oo inuu la qabatinay oo inteena dibadda joogta xataa inaan ka diirin sheekh iyo shariif aynu dhahno waa iska caadi ninkii wax ka sheegay walaashi weligiiba uu cayn jiray inaan saan idhaahnu rabaa ninkii wax ka sheegay walaashi weligii waan cayn jirnay inaan idhaahnu rabaa ma dhahayno mar walbana khalad weeye mar walbana damiirka naga hadlaynaa iyo dadnimadanada qofnama samaysan nama laha annagoo xor aan dhalanay annagoo xorna waan dhimanaynaa insha allahu tacaala adoo xor aad dhimatay yaad dhalatay adoo xor aad dhimo insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba meel baan ku dedegsanaa ama aan ku socday insha allahu tacaala arrinta ayanu baan rabay inaan ka hadlo dhammaantiin waa idiin mahadnaqayaa inteenna dulmiga diidan bannaanka iskeentay codkooda aan qarsanaynin wallaahi geesinimaad muujiseen iyo dhiiranaan ay malaayiin muujin la'dahay sii wada dhiirigeliya dadka qof walba luuqa ka soo bax waxa kula khaldan sheeg bannaanka soo dhig aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu